qorraxdii oo shiday leydhka berbera magaalada berbera ayaa waxay heshay mashruuc ballaadhin oo tamarta cadceedda ah tallaabo weyn oo xoojinaysa tamarta cusboonaanta iyo kobcinta kaabayaasha korontada mashruucan hirgelinteeda waxaa qayb muhiima ka qaatay ashkhaas iyo weliba shirkado kadibna abuuray berbera electricity company oo ay ka mid yihiin sida shirkadaha daabshiil ee leydhka oo gobolka iyo caalamkaba ka shaqeeya gudoomiyaha shirkadda berbera electricity company Ismaaciil Bootaan ayaa waxa uu sheegay in mashruucani uu kordhinayo awoodda korontada isla markaana shirkadda ay ka go'an tahay bixinta adeeg tayo leh oo la awoodi karo si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee berbera oo ah xarun ganacsi iyo saadka dalka anigoo ku hadlaya magaca berbera electricity company waxay noo tahay maanta sharaf inaanu keeno investment waxaynu inana ballan qaadaynaa inaynu investmentka ilaalinayno xoolahooda iyo xuquuqdooda ilaalinayno taasi waa ballan inagu aynu qaadayno wadan ma horimari karo haddii aan sektarada qaarkood la hagaajin sektarka energy-gu waa xuduntii wax walba ay ku dhisnaayeen financial sectorku waa kan ku xiga marka inaynu dhisno waxyaabaha dadkeen iqtisaadkeenu uu ku hagaagayo dadkeenu ay ku shaqaalo ku helayaan inaynu intaynu gacanta isqabsano waxaasoo dhan aynu aad iyo aad uga shaqayno marka taana waxaynu weydiisanaynaa inay sharikadu aad iyo aad uga shaqayso maamulaha guud ee GSU Cali Al-Shimaari ayaa waxa uu xusay in mashruucani muujinayo kalsoonida maalgashadayaasha isla markaana uu gacan ka geysanayo yareynta iyo ku tiirsanaanta shidaalka kobcinta wax soo saarka iyo abuurista fursado shaqo gabagabadii munaasabaddan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa si rasmi ah waxa uu xariga uga jaray mashruucani isagoo adkeeyay in leydhku yahay lafdhabarta nolosha bulshada oo soo dhaweynayna mashruuc la dhameeyay oo xarkaha leydhka qaada oo kordhinaya tamartii iyo awooddii leydhka berbera shirkadda waanu mahadnaqaynaa waana ka rajaynaynaa maalgashi kale oo fara badan hadday leydhka tahay iyo hadday sectorska kale tahayba leydhku maanta wuxuu kow ka yahay nolosheena berigi hore miyi baynu daskaga noolayno leydh maynaan baahnayn annaguna markaanu ardayda ahay faynusyaanu shida jirro leydh lama baahnayn laakiin maanta qofku leydhkii kama maarmo insha allahu dee leydhkii berbere maanta waddanka iyadaa ugu jaban ugu dambeynna waxaa mudan in la xusay in berbera electricity ay sanado badan si hagar la'aan ah uga shaqaynaysay leydhsiinta magaalada berbera iyadoo mar walba hormuud ka ahayd kobcinta iyo casriyeynta adeegga korontada mashruucan ayaa astaan u ah mustaqbal ku dhisan tamar nadiif ah oo waarta kana dhigaya berbera magaalo ku tallaabsanaysa horumar tamareed oo cusub